kulantaha Boondaawadyaal mar kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad oo kulanka loo dhan yahay qaramada midoobay ka jeedinaya khudbad ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ka codsaday in laga qaado dawladda federaalka Soomaaliya cunaqabateynta hubka ee saaran warbixintaasi waxay noo faahfaahinaysaa wariyahayga Bishaaro Cabdicasiis Jaamac Soomaaliya waa dal haatan ka soo kabanaya burburkii soo maray 26 sano ee la soo dhaafay waxa haatan muuqata dadaalo ay wadaan madaxda dawladda Soomaaliya kaas oo ay doonayaan in maqaamka Soomaaliya caalamka ay kaga jirtay inay soo celiyaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad mar uu khudbad ka jeedinayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa beesha caalamka kaga dalbaday in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta dhanka hubka أنا ku hadlayo magaca shacabka iyo dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta saaran I call on the UN to lift the arms embargo on Somalia haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah xilligan Soomaaliya ma u diyaarsan tahay in cunaqabateynta hubka saaran laga qaado waa kuwana siyaasiyiin ka hadlay ee kis xildhibaan Cabdi Bare Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Diini runtii intii Soomaaliya cunaqabateynta la saaray madaxweynayaal badan baa dalka soo maray intuba waxay codsadeen in cunaqabateynta hubka laga qaado lagamana qaadin waa sababeynaya sababta koowaad weli shacabkii Soomaaliyeed heshiisiin iyo nabad dhex martay malawaal sidii gobol loo kala jooga oo loo kala degan yahay walaal xaaladdu ay si hore ka degan tahay midda labaad ciidan Soomaaliyeed oo la isku haleyn karo oo inta amniga dalka soo la og yahay oo diyaarsan ma jiro marka taasina ku habooneen marka waxaan moodaa Soomaalidu meel aan wax ka jirin wax ka raadiyaan waxa fiican inteena cunaqabateyn ku cararin inta hubalna ka qaadeen horta ayagu marka hore isna nabadeeyo marka xilligan waxa fiican inay sameeyaan qorshe ballaaran oo si weyn loogu fikiro in Soomaaliya laga qaadi karo xilligan cunaqabateyn saaran waxa ogtaa gobolada dalka weli dawladda federaalka Soomaaliya ee si guud gacanta ugu hayso wax badan ka dhiman waxyaabaha ka dhiman iyo caqabadaadka dawladda federaalka ee haddii iska xalliso arintaasi waxa leeyahay waxa la gaari doonaa xilli ku haboon in laga qaado Bishaaro Cabdicasiis wararka SBC Muqdisho